Soomaaliland waxa ka jira gobol aan ogolaan inay go'aan waxyaalo badan baa u baahan in laga shaqeeyo oo laakiin loo bareero oo la iska daayo warwareegan la warwareegayo waxa la oran jiray waa la Soomaaliya wada hadlaysa Turkiga la tagaya London baa la tagay waa 2 days diyaarad maalin baa la sii saaran yahay galin baa la soo imanaya Soomaali weeye waa la iswada jecel yahay galin waa la sheekaysanaya waa la isku dhex jira waxba la cunaya midna miis baa la wada fadhiya waxna lagu ma heshiin waa goosanay waxaan su'aashayda intaanan gelin qodob yar oo hadii jeer madaxayga ka gooxa ayaa rabaa inaan idin la sheer gareeyo oo ku saabsan maxkamadda dastuurka أنا waxaan qabaa personally Soomaaliya maadaama ay dal burburay tahay dhaqaale ahaan si kasta ay dhibaatooyinkeenu isaga fara badan yihiin maxkamadda sare ku filan maxkamadda dastuuriga ma loo baahna maxkamadda dastuur waagii horeba siday ahaan jirtay marka case dastuuri yimaado maxkamadda sare 5 garsoore lagu daraa iyada marka isu bedesha maxkamadda dastuuriga goorma constitutional crisis dhici karaan sanad maybe 40 sano mar iyo laba inay dhacdo marka maxkamadda dastuuriga hadii la sameeyo budget loo sameeyo baabuur loo sameeyo gunno loo sameeyo intaas oo way iska fadhidaa 40 sano laga yaabaa mar ama laba inay active noqoto sida awgeed mar hadii jiro dariiq kale oo banaan oo ah in laga dhigi karo maxkamadda horena ay u jirtay waagii dawladihii hore maxkamadda sare inay dastuuriga isu bedesho anigu saasa qaba taas waa taa su'aashii tooska la weydiiyay waxay ahayd maxay ka iman kara caqabado Somaliland hadii iyadoo maqan dastuurka la ansixiyo Somaliland hadda siyaasay hadda rabtaaba inaan halkan dastuurkeeda waxba ku darsanin waa foonaa imka say taagan tahay waxaan qabaa inaan waxba ka imanaynin waxaan qabaa inay muhiim tahay in laga shaqeeyo sida isugu soo noqon lahayd Somaliland iyo Soomaaliya oo runta loo bareero oo aan laga warwareegin oo afka laga ilaalinin Somaliland waxay tir waan go'nay waa goosanay dastuur gaar ay samaysteen sidii marka loo soo fahamsi la isugu imaan lahaa waa in laga shaqeeyo hal lagu qoro constitution-ka labadaas waxay soo yimaadeen 60kii hadhow wixii dood baa laga galayaa awalba way soo yimaadeen condition la'aan bay ku heshiyeen wixii dambe waa laga heshiin karaa waxaan qabaa si hadii reality-ga loo noqdo Somaliland xisaab baa ka jirta doorashooyin toos oo shacbigu doortay galaan halkana 4.5 baa ka jirta sidee baa marka la isugu keeni karaa waa in horta la mideeyo level midan laga dhigo si wixii isugu yimaadaan Soomaaliland waxa ka jira gobol aan ogolaan inay go'aan waxyaalo badan baa u baahan in laga shaqeeyo oo laakiin loo bareero oo la iska daayo warwareegan la warwareegayo waxa la oran jiray waa la Soomaaliya wada hadlaysa Turkiga la tagaya London baa la tagay waa 2 days diyaarad maalin baa la sii saaran yahay galin baa la soo imanaya Soomaali weeye waa la iswada jecel yahay galin waa la sheekaysanaya waa la isku dhex jira waxba la cunaya midna miis baa la wada fadhiya waxna lagu ma heshiin waa goosanay waa muqaddas go'shadu iyo Soomaaliya midnimadeedu waa muqaddas halkaas lagu kala tagaa marka si serious loo ma gelin Soomaali dhaqan waxay leedahay 4 bilood 5 bilood 6 bilood ayay fadhiisan jirtay dhirtal hadii wax kasta ceeb baa hadii laga baxo shir weyn baa jira shir docoodiya jira wax kasta waa la xalinayaa waana ceeb in laga kaco shir marka la xaliyo ayaa waxa xalimanaya laakiin maalinna kuma filla constitution-na in loo xiro oo Soomaaliya horumar loo diido anigu ma qabo inuu ahaado kumeel gaad inuu rasmi laga dhigo qodobkaana lagu daro Somaliland laga shaqeysatay kuma lahayd oo laga wada hadli lahaa anigu taasaan qaba fikirka marka waxaan u maleeynaa caqabad ka imaanaynin su'aasha conclusion-keeda jawaabteedu wataa